ummadaan u dirnay ummadahaasoo min qablika adiga horta aha faaqadnaahum ummadaha waxaanu ku qabanay bilba'saa'i faqri daran iyo wadarlaa'i iyo xanuuno ayaanu ku qabanay lacallahum yatadarracuuna likay yatadarracuu say ilaahay isugu dhuldhigaan oo inta ilaahay isu dhuldhigaan ay u rumeeyaan falowlaa ay halla waa taxdiidiyadii weeyaane id jaa'ahum markuu u yimid ba'suna falowlaa id jaa'ahum ba'suna ay halla id jaa'ahum markuu u yimid ba'suna ciqaabka yagu markuu u yimid iyo dhibaatadii lagu qabtay tadarracuu maxay ilaahay isugu dhuldhigi waayeen maxay ilaahay isugu dullayn waayeen oo isugu dhuldhigi waayeen walaakin hase yeeshee saa maysan yeeline qasad waxaa engegtay oo qallashay quluubuhum qalbiyadoodii wazayana lahum ashaytaanu shaytaan baa wuxuu u qurxiyey maa kaanuu yacmaluun wixii ay samaynayeen buu u qurxiyey shaytaanku falammaa goortii nasuu ay ilmaameen maa dukiruu bihi wixii lagu waaniyey fataxnaa calayhim dushooda waxaanu ku furnay oo u furnay abwaaba kulli shayin shay kasta albaabadiisa mar allaale markay xaqii iyo khayrkii ilaaweenee ka jeesteenee diinta ilaahay ka tageen ayaa imtixaan la imtixaanaya waxaa lagu fanaha siiyey adduunyadii lagu furay abwaaba kulli shayin shay kasta albaabadiisaanu u furnay xataa idaa farixuu ilaa markay kibreen bimaa kii ay ku kibreen uutuu la siiyey akhadnaahum waanu qabannay bagtatan si kedisa baanu u qabannay faidaa hum waaba ayaga oo mublisuuna quustay oo ka quustay raxmadda ilaahay iyo khayr kasta ka quustay weeye marka waa khatarteeda leedahay qofku asagoo diinta ilaahay ka jeestay haddana in nicmo lagu farraqo waa arrin ku tusinaysa inuu khatartu sii badan tahay weeyaan alla wixii faqdica